boqolkii xildhibaan ee ugu horeysay ayaa la doortay Soomaaliya iyadoo sidoo kale horey loo doortay 54 mudane uu ka kooban yahay aqalka sare. Maamul goboleedyada ayaa laga doonayaa inay doorashada ku soo gabagabeeyaan ilaa 25 bishan, laakiin 175 xildhibaan oo dhiman ayaa keeni karta in waqtigu dhamaado. Dhinacyada siyaasadda isku xaglinaya oo ay ugu horeeyaan musharaxiinta iyo maamul goboleedyada ayaa dadaal ugu jira inay xubno ku yeeshaan baarlamaanka soo aadan. xildhibaanada ilaa haatan soo baxay ayaa u kala qaybsan kuwa loo xulay inay doortaan madaxweyne Farmaajo iyo xubno ku dhow midowga musharaxiinta iyo xubno kale oo codadkooda aan la qiyaasi kareynin. Haddaba maanta waxaan isdul taagi doonaa musharaxiinta ugu saameynta badan doorashada. Madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya inuu difaacdo kursigiisa Villa Soomaaliya. Qorshihiisan wuxuu u haystaa saaxiibo nafta u huraya oo kala ah Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Hase ahaatee doorashadii uu qabtay madaxweyne Qoorqoor waxaa qaybihii ugu badnaa ku soo baxay xubno mucaarada. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale lumiyay xildhibaanadii uu ka heli lahaa Somaliland kadib dagaalkii uu la galay Ra'iisul Wasaare Rooble oo maamulaya doorashada reer waqooyiga. Laakiin madaxweynuhu wuxuu isku haleynayaa lacagta Qatar. Fahad Yaasiin ayaana wakiil ugu ah inuu dhaqaalaha uga keeno dalkan qaniga ku ah saliidda ee 5 sano ee la soo dhaafay kala waday siyaasadda Villa Soomaaliya. musharaxa labaad ee ugu saameynta badan waa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. dad badan ma saadaalinayaan in Shakuur noqon karo musharaxa meesha ka saari kara madaxweynayaashii hore, laakiin xoga lagu kalsoonaa karo ayaa hadda inoo xaqiijinayeen siyaasigan oo ah mucaaradka ugu weynaa ee dowladda madaxweyne Farmaajo uu helay taageeradii ugu weyneed. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa loo gacan geliyay dhaqaalihii ugu badnaa si uu doorashada ugu soo baxo, waxaana uu dhaqaalahaas ka helay dowladda Imaaraadka Carabta oo hadda u xulatay siyaasigan inuu noqdo musharaxa ay la shirtagi doonaan doorashada soo socota. wararku waxay sheegayaan in musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu sidoo kale taageero ka helay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo safar maalmo qaatay ku tagay waddanka Imaaraadka Carabta. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa Imaaraadka kula heshiiyey inay dhisaan musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. qorshahan waxaa kula jira siyaasiga Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, kaasoo si weyn ugu dhow dowladda Imaaraadka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, hogaamiyahan Villa Soomaaliya u baneeyay madaxweyne Farmaajo, ayaa ka mid ah shakhsiyaadka sida weyn loogu saadaalinayo inay ka taliyaan dalka. waa hogaamiye furfuran, dowladdiisana lagu yaqaanay dulqaad iyo horumar. higsigiisii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystira ayuu ku bedeli doonaa dib u dhis, waxaana uu haystaa awood dhaqaale iyo siyaasiyiin culus oo qaarkood ku soo laabtay kuraastoodii xildhibaannimo. Xasan Sheekh oo ah xildhibaan aan dhicin ayaa sidoo kale gaashaan buursi kula jira siyaasiyiinta mucaaradka oo haddii ay soo bixi waayaan codadkooda siin kara. Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta, ayaa ka mid ah shakhsiyaadka miisaan kale ee u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya. hogaamiyahan ayaa isku haleynaya dhaqaale uu ka helayo dalalka khaliijka, laakiin musharaxnimada madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa kala dili karta musharaxiinta kula tartamaya xilkan madaxweyne Farmaajo. Siciid Dani ayaa aaminsan inuu Villa Soomaaliya ka bedeli karo Farmaajo, laakiin warar aan helayno waxay sheegayaan in Imaaraadka oo dhaqaale badan u ballanqaaday uu hadda u dayranayo. Dani ayaa ku tashanaya xildhibaanada maamulkiisa ka imaanaya iyo kuwa ugu badan ee uu ka heli doono maamulka Jubbaland. dadka siyaasadda falaqeeya ayaa aaminsan in Siciid Cabdulaahi Dani ay ku adkaa doonto inuu ku guuleysto doorashada. Ra'iisul Wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaa isna ka mid ah musharaxiinta miisaanka leh ee doorashada ku jira, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay dooqa labaad ee dowladda Qatar haddii ay ku guuldareystaan inay dhisaan madaxweyne Farmaajo. haddaba adigu daawade musharaxeed dooro lahayd, fariin inoogu reeb qaybta hoose.